عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. هذا arrimahan ka hadli doonaa anaa idinka soo horreeyey oo hore usoo khaldamay waana toobad keennay arrinteedii inaan dib bay usoo noqon waayahan waxaan wada barnaamij la yidhaahdo siigada jooji gabadhan guurso gabdhihii markaa waxay ii sheegeen dhalinyadii markaan ka wacyigeliyay arrintii oo aanidin guurka waxaa ka fiican siigada waxaa ka fiican guurka waxay guurkan ugu qaaliyeen gabdhihiina meherkooda ugu qaaliyeeyiin odaygiina galkan buu leeyahay horta bishaarada koobaad odayaashii waan la hadlay gabdhihii waan la hadlay waxaan ku leeyay maadaama nimankii ay gacantaas aamineen joojiya shuruudaha ku xidhisan tirada waxay ballan qaadeen wiil luqadda soomaaliga ku hadlaya meherna inaanaan ku xirin wixii sharcigu birnay waxaan ahayn horta ha ku bishaaraysa waxaan kula talinayaa dhalinyaro baalkan waxaa soo gashay 36 xidid 36kaa xidid meel ilaahay ugu talagalay oo diinta u banaysay ayuu ku moobareeya marka barashar wax looga keeno ama shaambada la adeegsado hadda waa meel waa waxaan diinku siyadana u diintaada kuu diido caafimaadkaagana saamaynta ku yeelanaysa baasha la iska ilaaliyo difeetada mustaqbala habeesada qofkay qaniinto iyo qofka soo sigeystaba waxay aasaar mustaqbala bay ku reebtaa ragna waxaa u liitan in gacantiisa guursaday joojiya arrintaas ilaahna toobad baynu u celinayaa adinka maaha waa dhalinyaro dhammeela joogtaba luqadayda garanaysa kuwa jarmalka kuwa ingiriiska kuwa koonfur afrika kuwa nairobi kuwa jigjiga kuwa book jooga waxaan kula talinayaa baashaas markaasaa joogteen waa inaga mamnuuc guurkiina waa sahlan yahay odayaasha laftooda waa la hadla waxaan ku yidhi waxaad yeelaysaan nimanka dhalinyada wiilka gabadha la timaado shuruudaha ku celinayna bilaa calaykum ayaguna waa in badanoo ka mid caqliga way yeeleen joojiya marka gacanta waa inaga mamnuuc gacantu wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ما شاء الله.